maamulka dowladda hoose degmada Gabiley oo uu hogaaminayo maayirka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi waxay doonayaan dadaalo lagu cirib tirayo geedka garawaaga oo farabaas ku haya isku socodka iyo bilicda magaalada Gabiley. maamulka dowladda hoose iyo maayirka magaalada Gabiley waxa ay muujinayaan lexjeclada ay u qabaan in bilicda magaalada Gabiley la jaan qaado magaalooyinka dhigeeda ah. kumanaan kamida shacbiga reer Gabiley ayaa saaka subaxnimadii isugu soo baxay xaafadda Laag Barako oo laga bilaabayo hawlgalka iska wax u qabsada ah ee lagu cirib tirayo geedka garawaaga. barasaabka gobolka Gabiley, barasaab ku-xigeenka gobolka, maayirka magaalada Gabiley, xoghayaha fulinta dowladda hoose, taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka, taliyaha saldhigga Gabiley, agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo mid kamida shacbiga reer Gabiley oo hadallada iska daba qaatay ayaa shacbiga reer Gabiley ku booriyay in meel looga soo wada jeesto dabargoynta geedka garawaaga. mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Gabiley ayaa sheegay in ay shaqo maalmeed ka dhigan doonaan ilaa maalinta geedka ugu dambaysa laga goynayo magaalada, waxaana yiraahdeen waxa si rasmi ah magaalada Gabiley uga bilowmay ololihii la dagaalanka garawaaga in hore u cilaaminay oo lagu beegsanayo ama lagu tirtirayo geedka loo yaqaan garawaaga oo aynu ka dharagsanahay dhibta oo bilicda iyo quruxda magaaladaba ku hayo. waxa inoo furo ah inaynu geedkaasi horta la dagaalano muddo kooban oo inta roobka ka horeysa aan xabadgeeda magaalada Gabiley lagu arago garawaaga. maanta waxaynu ka bilownaa xaafadda Laag Barako daamo garawaagu magaalada ku badan yahay. campaign-kani wuxuu noqonayaa intaynu bahalka dabarjarana joogto waxay istaagaysaa maalintaynu geedka ugu dambeeya aynu ka jarno magaalada. dadweynaha hal baloorada badan waxaan leenahay iyagana ha ka gooyaan oo agagaarka wixii ku jiraba aan ka gooyn annaguna gacmaha ayaan ula taganaa. bilownay cidhibtirkiyeen garawaaga horta waa geed aad u xun. waad aragtaan hawsha way socotaa idinka hadhay daawanayo waa dalkaagii. habeenkii markaynu nabadgelyada aan magaalada dhex marno roondeynano geedkaasi dhib badan buu nagu hayaa. qof kasta oo dembiila isaga naga reeba. geedkan xoolaha waa u cadow, dadkana waa u cadow, nabadgelyadana waa u cadow. marka waxaa loo baahan yahay inaynu geedkaa la dagaalano. waxaa si toos u bilaabmay barnaamijkii dabargoynta garawaaga. ilaahay idamkii sidaa uu maanta u bilaabmay buu u socon doonaa dabargoyntiisu. waxaan leeyahay maanta waan idin hambalyeynanaa niyo waxaa horumarkaa iyo tallaabada aad qaaday waa inaad garateen annaguna waan idinku garab taagannahay. halkan waxaa shaqo laga bilaabay barnaamijkii iskaa wax u qabso aynu gobollada Soomaaliland inagu horseednay ayaynu maanta weji ka la mid ah ayaynu ka bilaabaynaa oo ah halkudhigeenu yahay inaynu goyno cirib tirno geedka garawaaga. runtii saaka 6 barkii subaxnimo shaqaalaha dowladda hoose ay ku soo wareysteen maamulka gobolka iyo ciidamada iyo bulshada kala duwan ee degmada Gabiley. runaantii shaqadaasi waxay shaqo aad loogu baahnaa oo ay geedka garawaaga dhibaatooyin fara badan buu ku hayaa bulshada iyo deegaanka, xagga caafimaadka, xagga nadaafadda, xagga ma garanaysaa bilicda. waxaan faraynaa dadweynaha ama waxa iyagana looga baahan yahay inta dowladda hoose jarayso ee loo diray mooyaane inta kale in iyaguna guryahooda hortooda ka jarano ay nadaafeeyaan si aanu geedkaasi u noqdo mid dabar go'a. waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo runtii aynu doonayno dadkeena inaynu tusno gobolkana aynu u noqdo hormood. degmooyinka qaar kalena waa laga bilaabay iyagana. markaa si aynu isugu tashanno waa inaynu geedka ka gungaadhnaa sidii aynu u cirib tiri lahayn.